kulankan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha xafiiska xuquuqul insaanka qaranka Marwo Fadxiye Xaaji Xuseen Jaahuur agaasimaha waaxda lamaanaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mas'uuliyiinta hay'adaha Doses of Hope iyo DRC ee mashruucan fuliyay Marwo Faadumo Caalin iyo mudane Khadar Xasan Jibriil Khadar Beyle iyo mudane Cabdi Sambuur Abuukar oo ka socday hay'adaha DRC iyo Doses of Hope ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay in 79 qoys oo danyar ah loo tababaro habka ganacsiga isla markaasina la siiyo qoyskiiba $400 oo loogu talagalay inay ku bilaabaan ganacsiga si ay ugu dabaraan nolol maalmeedkooda gudoomiyaha xafiiska xuquuqul insaanka qaranka iyo agaasimaha waaxda lamaanaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in arrintani ay tahay mid waxtar weyn u leh 79 qoys oo ka mid ah dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Hargeysa isla markaasina ay yihiin inay laga maarmaan tahay inay uga faa'iideystaan sidii loogu talagalay iyada oo gabagabadii halkaasina ay ka hadashay mid ka mid ah dadweynahaasi oo tilmaantay inay si weyn ugu faraxsan yihiin isla markaasina ballan qaaday in ay ka faa'iideysan doonaan waxna gabagabadii halkaas shahaadooyin laga guddoonsiiyay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii fuliyay mashruucan